ما عند ما أنا ورا تاو سكر وأنا وجه في كل تو مرة لح ساعتها كسر كعي ما أنا كل تاي هذا جد ساعة سر كعي سر كعي موبيلك وحسيته سو داري محمد كابش قوي هذا وحي يوتيوب لي طب محمد جوك سوى بعين waxaan rabnaa inaan ka hadalno horta sababta ka dambeysay durdur media in hawada laga saaray iyo falcelinta ay ka sameeyeen dad fara badan bal munasab xaaladda noo soo koobto maxaad aragtay sidee ay horta falcelinta ku aad u maasan Cabdiraxmaan saa sheegtay durdur media waxaan aragnay in janaalkii hawada laga saaray runtii durdur media wuxuu ah kamid ahaa youtuberada Soomaalida kuwooda ugu saameynta badan marka la sheego magaalada Muqdisho durdur media marka hawada hadda waa laga saaray soo marka saddex qaab laba qaab ay noqon kartaa in cilad guud oo farsamo oo ay haysato u gaar ay tahay ima in janaalkii si guud looga jabsaday oo kooxaha karisama dad colaha ay heleen marka كليته واحد كهر سدا عبد الرحمن وأنا أدي بدن سمينا وحنا لحريني قدوميه يعني لحريني دور ميديا صح قارد يوروب نلجوا قارد يوروب نلجوا وحو شيء إن أنتو أي تارين علوس إسلام كان الحالين أو هذا اللي هو الجرو كرتي هذا اللي هو الجرو marka janaal noocan oo kala marka janaal la jabsanayo ama haag lagu sameeyo wax sahlan ma ahan marka si loo fiiriyo sababtoo ah hadda markaad xataa aad isku dayid inaad durdur media booqatid wuxuu ku leeyahay ma jiro janaalkan ma jiro marka in janaalka la daleeday ayay u egtahay oo asaga in hawada laga saaray marka aad fiirisid maadaama aad qof IT hadana dhigtay oo hadana mediahan ayaa in badan ku jiray sidee waa isleedahay rajada uu qabi karo in durdur media dib hawada ugu soo laabto isagoo sidiisii xogtiisii wato janaalka laba qaab waay rajo uu yeelan karaa hadii janaalka uu lagu sameeyay deactivate hadii lagu sameeyay oo bas kaliya laga saaray hawada kaliya hadhow active hadii laga dhigo shaqeynaa laakiin hadii janaalka delete la dhahay janaalka la baabi'iyay oo soo ascuntay waxay noqonaysaa in janaalka dib loo soo abuuro oo janaal cusub sidaas loo sameeyo bal intaan janaalka durdur media dib u gelin horta xasatoob waa qof noocaya xasatoob runtii aniga iyo ilmaha caanahooda waa isla soo shaqeynay oo waxaan garan karnaa nin aan ku kalsoonaanay khibradiisa dhanka saxaafadda iyo weliba howlihiisa kale ay tahay inay ku kalsoonahay way dhici kartaa waa bini-aadan mararka qaarkood hunguri iyo wixii lamida wuu qaadi karaa laakiin qofka markasta waxaa laga fiiriyaa backgroundkiisa qofkaan halkuu ka yimid qofkaan markaad garan karto halkuu ka yimid waxaa kuwa yaro fududaa kara meesha u socdo waa dareemi karaysaa laakiin aniga waxa ceebta igu xumeed aan maanta soo arkay waxay tahay oo igu qasbay inaan ilmaha caanahooda soo wada waxay igu qasbay dad mataqaana aqoon ahaan markii la dhaho dhankii saxaafadda ama dhanka mataqaana xataa media markii la dhaho aad uga liita ayaa maanta waxa ay ku faraxsan yihiin guuldaradii ama ciladii soo wajahday durdur media iyo xasan toob marka bal munasar adigu sidee dareemi lahayd qof maanta adigaa soo gacan qabatay bulshadii aad bartay maanta aad ka dhigto qof kaligiis wax qabsan kara inuu maanta jabkaaga u daanseeyo sidee maya horta runtii dhibka noocan oo kale ah wuxuu soo wada gaar gudoomiyana soo wacay hadda hal mar السلام عليكم. boss maxaa isaniyo maxaa codka ma internet ma iga xumo codka gooy Saciidow waa fiican wallahi boss waxni wax kale ma jirin waxaan kuula soo xiriiray waxay ahayd libaaxow arintii ku saabsaneednayo waaba yaaba dad ku faraxsan arka qoslaayo haddaan furi wallahi in bahal ma furo mugta anay صح بسم الله نو waxaan macnay cilad guud miya oo youtube ka haysata miya mise ما عند ما أنا ورا تاو سكر وأنا وجه في كل تو مرة لح ساعتها كسر كعي ما كل تاي هذا جد ساعة سر كعي سر كعي موبيلك وحسيته سو داري محمد كابش قوي هذا وحي يوتيوب لي طب محمد جوك سوى بعين ويا بقى سنة وبقى صدق وقبل عباس حريق سفيا عاصمة دولة قرب كل كجيل ما قد كسر وساق خافت يور نفسه وحجر حسيته واقع ويا من الله عرس كسجله يوتيوب كان يوتيوب كان لا جبس حليته ni horta aan youtube waa fiiriyay markii laga hadlayo macnaheedu youtube ka hadii deactivate lagu sameyn lahaa ma aragto oo
sida Facebook oo kale deactivated hadii la dhihi lahaa micnaheedu waxaa waaye hawada laga saaro kan marka does not exist uu leeyahay maba jiro dhahoyahay adiga ninka hadda soo walaal ko ninka sababta ka sii u sheegay waxaan dhaarniyo ana la hadlaa kulay toban ninka aan dhabar oo ku jeeso taas hawsha wadi marka qofka markuu hool ku dhigo mala dab صح واي ها الله يكادي هذا صار هلا عاود من هلا إنك هذا سكر عباس كبر هذا المهم وحال وقول ما يمشي هذا سكر هذا نظامي عندك كتير شيء غلط قرابة الدين ها إنك أضيع إنه كتم بيبيا باسوركو كورها باسوركو هاي إذا تقبل شو بتوعي من جزامها إلا باسورك كود مصادع عامية كود مكوحر نمية adiga waa lagu remove garay ma baa hadda dhawaato jeexda taqaayay tukad hadda daan aso malaha la dawladdu waa dalba oo muddo maxaa ku saddex maalin afar maalin shan maalin dadlayri balay ka qaban ma baa si fiican ha hindi taqaano hatta la kun dara daar ma bal qaadno oo ma hindi si horta waa gala karta qaab walba oo lagu soo celin karo ama lacag ku baxay amba maxaan ku raada xasaas ku baxay hadda waa galay laakiin wuxuu waxay tahay kan gmail-ki ay talabadisay password-ki bas dawladda ma fahanti aad niyo maya wallahi arintu arin yaab leh waa wallahi niyo dad badan oo waxaan arkaa YouTubers oo saaxiibo gulfaamo faraxsan ayagana oo dhahayo Durdur Media hawada laga saaray waa ormaama hadda xasan arintan wuxuu ku wajihi karaa si aqliyeysan oo farsamaysan uu ku wajihi karaa hadduu hadda maanta wareeriso isku xiro waxaa waaye wax muu hagaagay laakiin hadduu aqli ku raadiyo wixiisa uu heli karaa ma fahanta bismillah war dhibaato waaye haye sida maqlaysaan ilmaha caanooda la hadlayo waa gudoomiyihii Durdur Media qaaradda Yurub jooga bal munasar ka waran bal qof adiga aamintay oo gurigaaga aad dejisay oo xaaskaaga raashinka u keenaysay oo iska daay YouTube iska daay xataa hantidaadii iyo qoyskaaga ku aamintay bal inuu sidaas ku lugooyo sidee maxay والله عبد الرحمن horta arin maaragtay mushkiladeeda leh waaye arin adag waaye arinta noocan oo kala markay marayso sida had dabcan aan dareemi karno YouTubers-kana Soomaalidu waxa waaye wax kale ma ahan ujeedka ugu weyn waxa waaye tartan jiro tartanka jiro laakiin tartanka ma aha inuu noqdo maaragtay xaasinimo iyo wax la mid ah tartanka ma ahan tusaale adiga xaq waraysi leedahay anina marqaatiyan leeyahay sax lacagtii views-kaagii bishan ku soo dhacaysay hadii aan ku xaasinimeeyo intay ka wareejiso miyana ii soo direen waxaan ani shaqaystaa leeyahay Soomaali challenge waa inaan kugu la galaa bis dhageystayaasha san kaaga soo kasba lahaa san kaaga dhageysto ka badilaa laakiin in ma taqaana hawada laga saaro in ma taqaana lagu niyad jabiyo haddii aan ku farxo tii waa cadaawad see maxaa dareemaysaa wallahi aniga arintan hadda maaragtay tiimka saaxiibadan soo wajahday aad aan ugu murugsanahay waxaan ugu murugsanahay waxa tahay rag dhalinyaro ah oo shaqaysanayay oo isku filnaa oo YouTube-kooda ka shaqaysanayay in maaragtay cadow noocaas oo kale uu soo weeraro waxa argagax leh waa runtii waxaan rabaa inaan hal mar idin daaro mid kamid ah YouTuberleyda gaar ahaan kuwa uu soo gacan qabtay saaxiibkay Xasan Toob gaar ahaan kuwii aan ku baranay mataqaanaa social media ninkan ka hadlayno waa nin kale maahan waa Ismaaciil Xaaji Cabdalla waa wariye waan u aaminsanahay kaas oo dhanka saxaafadda u aaminsanahay laakiin inuu baraha bulshada ku yeesho taageero aad u fara badan waxa uu ku kasbaday berihii yaraa ee koobnaa uu la joogay Xasan Toob ama Durdur Media aniga inuu inta bulsho soo hor fadhiisto erayo ku hadli karo aniga ma aaminsanayn laakiin markaan ku arkay Durdur Media ayaan aaminay inuu intaas in ka badan uu sameyn karo laakiin wax laga xishoodo bal ila dhageysta wax yar kamid ah hadaladiisa Sanda farxada ka dareemaysaa
farxad baa hadalkiisa ka dareemaysaa waxaa fahmi lahay qof dhibkiisa ku farxaya ahmiyadda uu ka faa'iidayo waxa uu ka heli karo iyo faa'iidada waxa asaga maanta qofkaas ku dhacay ayaa ku imaan karta asaga ku imaan karta marka wax la yaab leh waa Cabdiraxmaan Soomaalida waxay ku maamaadaan taqaana geeridii galbeed ka yeerta guntaaga ka filo oo macnaha ula jeedaan ma taqaana murugta xagga ka yeertay haddii aad ku farxado ogow xaggaagana way ku soo maqan tahay mid kalena waxay ahayd ushii walaalkaa ku dhacdo gurmadkeeda aday meel kuu taalaa walaalkeeyow adiga iyo kuwa kale midkaa sida mid ay dhahayaan midaaba sab dhigtaan iyaba mid ay dhahaan jooga ishaag farxad sida midka joogo iyo mid kale dugaali weba farxa waxaba dhigteen kulan ducaa ay samaysteen marka ha yarka farxad sida wado janalkiisa dib u raac wuxuu mar walba ka hadlaa mar walbaba oo analyze ku sameeyaa xogta uu sameeyey baa xasan toob uu sameeyey haddaba durdur haddii hawada laga saaray xad ii sheegi rabtaa marka xad ii sheegi rabtaa adeer waa waxaan faa'iido lahayn marka ilmaha caanahooda oo wakiilka xog waraysi iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed oo markhaati TV waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada iyo culeyska la qaybsanaynaa walaalkeen saaxiibkeen bahwadaaga anaanay saaxiibkii xasan toob wallahi kuma faraxsanin dareen ahaan kuma faraxsanin maxaa la munasir inuu isoo hor fadhiisto ila fadhiisto uu hooshiisa uu ka soo tago sababta qasbaysana waa gara kartaa waa dareen uu ka gubanayo oo dhibka saaxiibkiisa gaaray marka ugu dambeyn saaxiibka runtii waxaan leeyahay xasan toob intii gaarsiimo ay leedahay la dadaalayaa dhinacaaga adna ka dadaal annaga naftigeena waxaan isku dayaynaa inaan maaragtay dagaalanka wax ka galno oo ku saabsan sidii janaalkaas dib loo soo celin lahaa wax aan marka aniga waxaan dhihi lahaa Cabdiraxmaan oo aad u maasanta waxaan dhihi lahaa waxay tahay xasan waxaan dhihi lahaa niyahow ha isdhiibin never give up laa tastaslim dagaalanka waa wadeynaa muxuu ahaa waxaan sameynaynaa isku dayo sidii lagu badbaadi karo janaalkaas macnaheedu janaal qof keli uu leeyahay maaha waa janaal Soomaaliyeed oo Soomaali dhan ay ka intifaacaysay oo maaragtay rag dhalinyaro ah ay abuureen oo madadaalo iyo maad iyo qosol intaba laga helayay marka halkiina ka wada anagana dadaal halkiina ka wadayna insha Allah waana guuleysanayna anina waxaan ku sii raacinayaa xasan toob nin aqoon iyo halabuurnimo ku tabaya ayaa tahay haddii maanta xataa in case ay dhacdeen lagu guuleysan waayo janalkaas weli halabuurkaagii wuu kugu jiraa aqoontaadii way kugu jirtaa waxaadna kasba kartaa bulsho kala duwan laakiin midaan hadda kugu dhacday ha kuu noqoto tusaale wanaagsan ha kuu noqoto mid ah inaadan cid kasta aadan aaminin ma garanaysaa cid kasta inaadan aamin sababtoo ah kii aad gogoshaada uga kacday kii aad mataqaanaa raashinka aad adiga u hormarisay kii aad tiri xaajidaada badarka ugey fadhiga ugeysay cunugay dhashay haddii uu sidaa kuu galay mataqaanaa ma garan karo qof kaloo marka kusoo dhaweynayso aaminaadoodu ha yaraato waxaan dhihi lahay saaxiibkay oo hadda naloo sheegay inuu ka dambeeyey waa ninkay dhahayaan nidaamiye ninkay dhahaan ana kuma xaqiiji karna laakiin sida waraysiga hadeertaan lagu sheegayo oo agaasimihii dhan oo noo sheegay ninka hadda tuumka ugu badan lagu tuumayo inuu barnaamij ka dambeeyey waa nidaamiye oo la sheegay inuu xataa baasweerka gmailka uu hayay la sheegay marka waxaan leeyahay saaxiibkeeyo mataqaanaa guusha sidaa laguma gaaro guusha waxaa lagu gaaraa dadaal iyo kartidaada iyo wixii kale aad sameeya kartid marka saaxiibkay ilaahay aa kuu fududay inta ku hartay saaxiibadeeda kale uu sida Ismaaciil Xaaji iyo yarkan farxaside iyo ay ka mid yihiin wixii lamid ah waxaan leeyahay saaxiib yaal guusha walaalka ayaa guul ku ah laakiin guul darada walaalka ugu guul dara ayaa adeena ku tahay sidaas nabadgelyo asxaabta sharafta leh waa bidhaamiye iyo saaxiibkiin ilmaha caanooda in Allah sida ay nabadgelyo